ma rabtaa kalsooni iyada hadlaysaa ka hor intaadan eray dhihin. Kalsooni marka dadka ku dhex jirid kaa soocaysaa, kaa dhigaysaa qof awood badan. qof kasta heerka soo jiidashadiisa dadku waxay ku xiran tahay hadba intuu ku kalsoon yahay naftiisa. waxaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalkani 5 habdhaqan oo aad ku noqon kartid qof isku kalsoon. saaxiib 5tani habdhaqan ma ahan waxaad iska dhigdhigayso, ee waa habdhaqan aan rabo inaad joogtiiso si dabiican aad u dhaqangeliso. muuqaalkan intaan u gudagalin waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la garayso si dad badan u gaaro na caawiyo. habdhaqan koowaad waxa uu yahay wax badan dhegayso, in yar hadal. dadka isku kalsoon ma hadal badnaa, ma buuq badnaa. hadalkooda in la maqlo waa dhif iyo naadir. haddii goob shir uu ka dhacayo ay joogaan waxa ay badiyaan dhegaysiga. hal mar ayay ku hadlaan hadal macno weyn xambaarsan oo kooban. ma murmaan, mana qayliyaan. waxay u hadlaan si degan, waxayna caddeeyaan mowqifkooda. waa indhayn badan yihiin, hadalkooduna wuu yar yahay. dadka bini'aadamka way ixtiraamaan qofka hadalka yar, waayo wax badan kama oga. waxaana la dhahaa qofka caqliga badan iyo qofka doqonka ah waxaa la kala gartaa markay hadlaan. Platon waa kii uu yidhi dadka caqliga badan waxay hadlaan marka ay waxayaan, halka doqomadan ay u hadlaan waa la hadlay. habdhaqanka labaad ee aan rabo inaad joogtiiso waxa ay tahay cabashadaada dadka ka ilaali. saaxiib qof kasta adduunkani wuxuu la daraadhacayaa dhibtiisa u goonida ah. ma jiro qof dhib la'aan ah. ha u cabanin dadka. dhibta ku haysatan ha uga sheekaynin, hana u calaacalin. dhibtaada hoos u xali, waxaana iska dhigtaa qof awood badan oo aan dhib haysan. ha ku wareeraan dadka qofka aad tahay, adiga ha ku tala weydiistaan, laakiin dhibtaada marna ha ula tegin dadka. habdhaqanka saddexaad waxa uu yahay markaaad qof wada kulmaysaan eye contact ku samee qofkaas. qofkani fiiri indhihiisa, ha ka jeesaan, hareeraha ha fiirinin. ha u dhaqmin sida ilmo waalidkooda la kulmaayo oo kale oo madax loo salaaxayo. qofkan waa bini'aadam kula mid ah. markaad wada fadhiistaan eye contact ku samee, u muuji qofkan inaad dhegaysanayso, xaadirna aad tahay. haddii ay tahay xitaa gabar aad jeceshahay, si fiican indhaheeda u fiiri. waxa ay ka sheekaynayso si fiican u dhegayso. kalsoonidaada ayay kor u qaadaysaa. qofkanina tani waxa ay dareensiinaysaa inaad isku kalsoon tahay, kalsoonidaadan ay zaa'id tahay. mar aan daawanayay gabar yuutuubarada oo lagu magacaabo Lana Blake oo ka sheekaynaysay khaladaadka ay ku dhaceen wiilashii ay shukaansan jirtay. waxay leedahay wiilka marka aan kulanno indhaha ima siin karo. haddii xoogaa aan fiiriyana wuu iga jeesanayaa. markuu ii sheekaynaya hoos ayuu fiirinayaa ama hareeraha ayuu fiiriyaa. waxayna dhahaysay sidee ula dhaydgarayaa qof aniga iga cabsanaya, si toosaan ii eegi karin, indhahayganaan u fiirin karin. tani Soomaali ahaan waa xaalad jirto ina haysataa. waxaana dhahnaa indha isjecel isma eegaan, laakiin waa mahmaah marin habow ah. waayo qofka aad jeceshahay waad fiirinaysaa, weliba waad ka dhex baxaysaa. weliba qaabka bishimihiisa uu hadalka ugu soo bixinayaad ku raaxaysanaysaa. waan wada ognahay, laakiin qofka aanan fiirin karin qofka uu jecel yahay, taasi waa cabsi, mana dhihi karo jacayl. habdhaqanka afraad ee aan rabo inaad joogtiiso waxa ay tahay ka shaqay naftaada. waqti geli naftaada, labiskaaga, caraftaada iyo dharka aad xiran tahay. ma ogtahay in dharka aad xiran tahay iyo sidaad u carfaysid ay horumariyaan kalsoonida qofka. tusaale marka aad soo libisato dhar comfortable aad ku dareemaysa inaad soo xirato, xoogaa aad iscarfiso, waxaad dareemaysaa si ka duwan sida maalmihii oo kale. xitaa qaab socodkaaga waxa u muuqdaa qof isku kalsoon. waad istagtaagaysaa. qofka kaa hor imaanaya wuxuu kaa garanayaa inaad aad isku kalsoon tahay. maanta aad ka duwan tahay maalmihii kale. maxaa kuu diiday in maalin kastaad sidaa u noolaatid? xiro dharku soo saaraya, iscarfi, si kalsoonidada kor ugu qaadid. fadlan hagaaji labiskaaga iyo caraftaada. habdhaqanka shanaad ugu dambeeya aan rabo inaan kula wadaago waxa ay tahay naftaada cidlaha la barbardhigin. saaxiib, ilaahay wuxuu ku abuuray sida ugu quruxda badan. ilaahay wuu garanayaa sidaad ku soo baxaysid. ha isdhihin qof baa kaa qurux badan. haddii aad caddahay sida ayaad ku soo baxaysaa. haddii aad madowdahay sida ayaad ku soo baxaysaa. haddii aad gaaban tahay sida ayaad ku qurux badan tahay oo ku soo baxaysaa. waayo ilaahay wuxuu kuu abuuray sida ugu quruxda badan inaad ku soo baxayso. marna naftaada hala barbardhigin qof kale, noloshaadana hala barbardhigin nolosha qof kale. ma ogid qofkan waxa uu la nool yahay, dhibta haysataa. ka warna haddii lagu dhaho waxa lagu soo wareejinayaa dhib aadan ogeyn, miyaad xamili lahayd? ka warna haddii qofkaasi aad ka warqabi lahayd nolosha uu ku nool yahay, miyaad aqbal lahayd oo ku riyoon lahayd inaad ku noolaatid? marna hala barbardhigin nolol aadan ogeyn dadku waxay ku nool yihiin. marna nafta kuugu jirta sidaad u egtahay hala barbardhigin qof kale oo aad aragtay. saaxiib, sida aad tahay aad ku qurux badan tahay. sida aad tahay aad ku wanaagsan tahay. sida aad tahay aad ku soo baxaysaa. qaabkani goonida ay unique ah ilaahay uu kuu abuuray ayaad ku soo baxaysaa. marka aad soconayso aamin qof kula mid ah ma jiro. markaad meel joogti aamin qof kula mid ah ma jiro. dadka adiga ugu sarreeya.
taasi ha kuu noqoto shidaal iyo dhiirigelin aad dad kale aad uga dugnaatid naftaadana aad ula barbardhin cid kale. Halkan ayaan kusoo gunaanadayaa muuqaalkan. waxaan kaa codsanayaa haddii halkan aad soo gaartay saaxiib muuqaalka la gare si dad badan u gaaro. waa mahadsan tahay.